wuxuuna u ruxay madaxa isagoo ula jeeda aniga ayaa ahay aabahaaga. Gabadhan waxay fahamtay jacaylka aabaheeda, ayadoo dhoola cadaynaysa ay gacanta aabaheeda qabatay kuna hogaamisay guriga. Hooyadiina aad ayay ula yaabtay dharka maskoodka. Markuu madaxa maskoodka iska bixiyey, aabbo wuxuu u istaagay sidii ilmo qalad sameeyey. Gabadhan waxay si tartiib ah ugu qaaday madaxa maskoodka, waxayna wejigiisa ka tirtirtay dhididka iyadoo dhoola cadaynaysa. Qofna ma kala saari karin inuu ahaa dhidid ama ilmo. Qoyskii saddexda qof ah waxay bilaabeen inay si tartiib ah uga bogsadaan dhaawacii, waxaana la gaaray maalintii xukunka kama dambaysta ah. Dambiilihii wuxuu xabsiga gudaheeda kasoo gudbiyey raaxfaano badan, isagoo leh anigu dembi ma lihi. Tani waxay gabadhi ku qasbaysay inay mar kale dib ugu noqoto xasuusihii xanuunka badnayd. Ka hor maxkamadda, aabbo wuxuu si gaar ah ula kulmay dambiilaha. Inkastoo sanado badan uu xabsiga ku jiray, dambiiluhu wax qoomamo ah ma muujin, wuxuuna wejigiisa ka muujiyey kibir iyo qabow. Arrintaas ayaa aabbaha aad uga caraysiisay. Aabbuhuna kursi ayuu qaatay oo ku dhiftay muraayada kale oo xigta, laakiin dambiilaha wax dareen ah ma muujin. Maalintii maxkamadda, gabadha ayaa loo yeeray si ay mar kale u aqoonsato dambiilaha. Markii sawirka dambiilaha shaashada lagu soo bandhigay ayaa madaxa hoos u dhigtay, kadib gacanta ayay taagtay. Garyaqaanka ayaa weydiiyey inuu ahaa qofka dhibaatada geystay. Gabadhuna si aamusnaan ah ayaa madaxa ugu ruxday haa. Garyaqaankii difaaca ayaana bilaabay su'aalo adag. Su'aal kasta waxay si toos ah u dhaawacaysay qalbiga gabadha. Waxaa la weydiiyey inay urtay qamri maalintii weerarka dhacay. Su'aalahaas waxay gabadha dib ugu celiyeen xusuusihii xanuunka badnayd. Markii dambiilaha maxkamadda yimid, dadka ayuu u sujuuday isagoo iska dhigaya qof wanaagsan. Markii lagu eedeeyey dembiyada, waa uu diiday wax walba. Garyaqaankiisa ayaa keenay warbixin sheegaysa inuu sarqaansanaa waqtigu dembigu dhacay. Dambiiluhu wuxuu isku dayay inuu sidaas ku caddeeyo inuusan mas'uul ahayn. Arrintaas ayaa aabbaha aad uga caraysiisay. Ugu dambeyn maxkamaddii way dhamaatay, xukunkii ayaana lagu dhawaaqay. Dambiilihii waxaa lagu xukumay oo keliya 12 sano oo xabsi ah. Sidoo kale magdhowgii codsiga ee qoyska waa la diiday. Dadkii maxkamadda joogay dhammaantoodna waa ay caroodeen. Hooyadii way ooysay, aabbihiina wuu istaagay isagoo aad u xanaaqsan. Wuxuu dareemay haddii sharcigu iqaabi waayo inuu isaga cadaalad raadsan doono. Markuu gacanta kor u qaaday si uu wax u sameeyo, gabadhiisa ayaa lugta qabatay. Gabadhu waxay ku baryootantay inuusan qalad u samayn ayada darteed. Aabbo wuxuu eegay gabadhiisa aqliga badan kadib wuu ooyey. Ugu dambeyn wuxuu qaaday gabadhiisa kana baxay maxkamadda.